السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما قيات يوتيوب إن سلامي عشان كان وxuu ku saabsan yahay sidii router-keena aan ugu xir lahayn dadka wifi-ka isticmaalayo ama mobilada ha ahaadaan ama kombiyuutar ha ahaadaan inayna ka isticmaalin website xun ama aflaanta xun ay daawanin marka aan ku tuso si aad ugu xirtid marka hore browserka ayaad boqonaysaa kadib linkiga description ayaad gelaysaa dnsnorton.com ayaa gelaysaa kadibna jeg ayaa meesha saaraysaa kadibna meeshaas ayaad ku dhufanay kadibna configuration routerka ayaad ku dhufanay kadibna waxaad dooranaysaa saddexdaas qaybta ugu hooseysa ayaa wanaagsan aan doortay aniga ay la wanaagsan oo ah security iyo graphics sawir ay wax kasta inuu ka xiro kadibna koorkaas ayaad right click copy ayaa leedahay si aad u koobiyeysatid kadib si IP addresskaaga oo u heshid routerkaaga internetkaaga ayaa right click ku leedahay kadibna open network ayaa leedahay sharinka kadibna cablekaaga ama wifi-ga ayaad ku dhufanaysaa kadibna details ayaa tagaysaa meesha ku qoran tahay gateway-ga ayuu ku yahay routerkaaga numberka aad ku galaysid kadibna waan iska soo xirinaynaa dhammaanteen markaan iska soo xirino dhammaan waxaan gelaynaa browserkeena kadibna waxaan leenahay 192.168.1.1 kadibna badanaa routerada waxaa admin u ah iyo admin kadib okay ayaan leeyahay kadib markaan okay dhaho waxaan gelayaa meesha ay igu qoran tahay basicaaga routerkaagana wax ka raadinaysaa way kala duwan meesha ku qoran tahay DHCP ay ku qoran tahay kadib waxaa fiirinaysaa primary DNS service ayaa markaas fiirinaysaa iyo secondary DNS service numberka koowaad waxaa ku koobiyeynaysaa wuxuu kala duwan meesha 126 iyo 127 ay kaliin numberkaas bis ay kala duwan yihiin meeshaas hoose si haddaan ku tuso browserkayga aan ka soo qaadana wujida 126 haddii aan website boqdo sidaan ay kugu soo saarayaa haddii aan ka fiirino mobilkana haddii aan falaanta xun lagu isku dayo inaan galo aan boqdo google-gayga chrome-ka ka boqdo isku dayo inaan website galo wuxuu ii soo saarayaa sidaan in website-kaasna la xanibay wax kasta website xun oo dhan ama xayisiimada xun oo dhan sidaas ayuu u xirayaa marka insha Allah ka faa'iideyso wanaagsan assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh jazaakum allahu khayran